tan iyo waqtigii xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid uu kala qaybsamay laba garab oo ay kala hogaaminayaan musharax madaxweyne ee xisbigaasi Jamaal Cali Xuseen iyo weliba gudoomiyaha xisbigaasi Faysal Cali Waraabe. kala qaybsanaantaasi labada qaybood oo sababay in magaalada Hargeysa ay ku kala qabsadaan laba shir oo ay kala hogaaminayaan Jamaal Cali Xuseen iyo injineer Faysal Cali Waraabe, taasi oo loogu cumaamaday inuu musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi ee doorashada soo socota uu noqdo injineer Faysal Cali Waraabe. dhammaan garsoorka iyo guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta qaranku ay sheegeen dhammaantood inuu saxsan yahay garabka Faysal Cali Waraabe ayaa waxay soo tarisay tan waqtigaasi taageerayaasha labada garab ee kala raacsan injineer Faysal Cali Waraabe iyo weliba Jamaal Cali Xuseen ay ku kala taageerayeen iyagoo mid kastaba uu sheeganayo in guushu isaga raacday. magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xaflad ballaadhan oo lagu taageerayo Jamaal Cali Xuseen, taasoo taageerayaashu ayaguna sheegayaan mid kastaba kiisu inuu saxsan yahay. dhalinyaro ka mid ah gobolka Maroodijeex oo soo qaban qaabisay xaflad taageero buuxda ay ugu muujinayeen Jamaal Cali Xuseen waxaa hadaladoodii ka mid ahaa. waa Mustafa Xuseen Daahir, halka waxa isugu timid dhalinyarta iyo waxgaradka gobolka Hargeysa oo ka xun kala dhiidhisan cadaalad darradii ka dhacday xisbiga cadaaladda ee daryeelka ucid ee ku dhacday musharax Jamaal Cali Xuseen oo ay ka xun yihiin hadday yihiin waxgaradka iyo dhalinyarta gobolka Hargeysa. waxaan halkan maanta isugu ka cambaaranaynaa wixii ka dhacay xisbiga isaga ee lagula kacay musharaxa daayar leh, annaga oo ka xun dareenkaygana ku muujinayna falka foosha xun leh ee aan dalka hore uga dhicin ee lagula kacay musharax Jamaal Cali Xuseen, taas oo ah mid cadaalad darro ah oo aan qof kasta oo muwaadina iyo isaga midnaba qaban. waxaana hormuud ka ah xukuumadda Somaliland iyo xisbiga kulmiye. waxaanu leenahay sharciga waa loo siman yahay, dalkana kulmiye ma laha sharciga ma laha, sharciga waa loo dhigayaa dalkana ummadda reer Somaliland baa leh. lagu sameeyay Jamaal Cali Xuseen aynu ka soo horjeednaa mana yeelayno cadaalad darrada lagu sameeyay. leenahay cadaalad ha lagu noqdo, bili aadanka waxa kaliya deeqa waa cadaalad. ilaahay baynu weydiisanay inuu cadaaladna siiyo. waxaynu ugu heelinaa anagu qabiilnimo ma ugu heelinayno, laakiin musharaxaas Jamaal Cali Xuseen ee da'da yar ee aqoon-yahanka ah ee isleenahay dalka waxba ka bedeli doona. Faysal Yusuf Kacaan, warbaahinta SBC, Hargeysa.